inaad tasbiixsatid oo rabbi subxaanahu wa tacaala aad xustid mar walba. marka camalka wanaagsan wuu fara badan yahay. qofkii awoodo inuu soomi karo ha soomo maalmahan, soonka ayaa u fadli badan. qofkii aan awoodin camalka wanaagsan wuu fara badan yahay, hala yimaado maalmahan, ha ziyaadiyo oo ha kordhiyo. sidoo kale waxaa muhiim ah oo la doonayo qofkii inuu siiyo muhiimad gooni ah maalinka ugu dambeeyo, maalinka 9aad, maalinka carafo. carafo markii la taagan yahay, qofka maalinkaas inuu ka faa'iideysto inuu soomo. haddii maalmahan uu soomo waaye, halkaas maalin inuu ka faa'iideysto uu soomo ayaa la doonayaa. dadka xajiyey maalintaas ma soomayaan, ama dadka aan xajin oo guryaashooda joogo, waxaa la doonayaa maalinka carafo inay siiyaan mudnaan gooni ah. maalinkaas inay soomaan oo soonkeedan ay ku dadaalaan. nabigan calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, soonka la soomo maalinta carafo waxaan rabbi subxaanahu wa tacaala aan ka ajar dalbanayaa, ama aan ka rajaynayaa, ama aan ka xisaabsanayaa inuu ii dhaafo sanadka ka horeeyey maalinka carafo iyo sanadka ka dambeeyey inuu ii dhaafo dembigeyga ayaan rabbi subxaanahu wa tacaala ka rajaynayaa. marka maalinkaas waa maalin aada u qiimo badan oo la doonaya qofku muslimka inuu soomo hadduu awoodo, soonkeedan uu ku dadaalo. waayo waxaa la isku dhaafaa sanadka ka horeeyey iyo sanadka ka dambeeyey dembigooda la iskugu dhaafaa maalinkaas keli ah. marka aan ku dadaalno maalmahan aadka u qiimaha badan. ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrka hana waafajiyo. ilaahay subxaanahu waxaan ka baryayaa soonkeena iyo salaadeena iyo camalka wanaagsan maalmahan aan qabanayno, allah subxaanahu wa tacaala hanaga aqbalo. dembigan allah dhaafo, dembi walaalkan allah dhaafo, dembi waalidkan allah dhaafo, muslimiinta dhanba dembigooda allah dhaafo. assalaamu calaykum.